السلام عليكم muuqaalkan waxaan kusoo qaadan doonaa qiso yar oo dhex martay islaan reemiyada iyo nin weyn oo aqoon ahaa oo barnaamijka beeraha ku casuumnaa subaxa kamid ah ayaa waxaa dhacday in barnaamijka beeraha uu ku casuumnaa nin aqoon markaa sheeganay waxa soo wacday islaan markaa ka soo hadlaysay taasi oo ka cabanaysay in beeraley ay ahayd isla markaana beerteeda ay bilaa nafaqo noqotay caradeedii waxaanay weydiisay su'aal sida tana waxay ku tiri hooyo waxa bilaa nafaqo iga noqday carrada beertayda sideen markaa ku nafaqayn karaa ninkii aqoonyahanka wuxuu ugu jawaabay erayo English u badan oo aad kala xishoon lahayd adiguba waxa uu ku yiri horta waxa important ah inaynu protect garayno soil fertility taana waxaan ku gaari karnaa annaga oo isticmaalnaa fertilizers hooyadii ama maamadii waxay ku jawaabtay hello maqal ma jiraa maxaa ku dhacay meesha ma sancadaala fadhiya